dimi shacabkaygii baa soo dhaweeyay dadkaygii baa soo dhaweeyay dawladdeydii baa soo dhaweysay magaalada Muqdisho anigu in badan baan deganaa waa ganacsadan ka ahaa waan ka shaqaysanayay muddada aan joogayba waxaan ku jiray halgan haddii abu ku idmaayo nimanka reer Muqdisho qarannimada Soomaaliland hal qof oo reer Muqdisho oo ku sabot gareynaya ma jiro reer Soomaaliland aad baa magaalada Muqdisho ciidii qadiyadooda ugu jirta rag baa soo weeraray saddex nina anoo raayigayga ka dhimanaya badii la kireeyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka kireeyay wadanka Itoobiya oo maalgelin ku sameynaya badeena Soomaaliland xaq baynu u leenahay cidaynu ka kareynayno niman baa soo weeraray nimankaasi waxay ahaayeen dhowr nin dagaal bay ugu soo qaadeen goobteedii ganacsi way burburiyeen waxay kaloo nimankaasi sameeyeen nimankii argagixisada ay shabaab bay lambarradeedii soo siiyeen isla habeenkiiba shabaab bay soo hanjabayay waxay soo hanjabayay huwan kale waxay soo hanjabayay ummado kale waxay noqotay aniga iyo xamar madaxdeena halka joogtayna waan dhaliilayaa hal inoo xataa soo wacay kuma jiro ila soo hadlay oo yiri war bal maxaad qabtaa kulligood xilko iyo mushaaraadkii wada ilaashanayeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guud ahaan horta shacbiga Soomaaliland waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa gudoomiyaha guddida qandaraasyada agaasimaha madaxtooyada Mubaarak Taani gudoomiye Sakariye Nuur Saajin oo qayb libaaxle ka qaatay isku xirkii soo dhaweyntii iyo badbaadintiiba garoonka Muqdisho markaan ka soo baxayay xogtaydii waan bedelay sawirkayga waan bedelay oo gadhkii waan iska xiray koofiyad baan soo qaatay magacayga waan bedelo Maxamed Cali Galeer baan la baxay airportka xataa isbaara la dhigtay waxa soo dhan waxa loo sameeyay waxaan u sameeyay badbaadada naftayda waaran baa la soo jaray waaran maxkamadeed si kasta waa la isugu dayay gurigii baan uga guuray degmadii baan uga tagay ilaa iyo maalintii dhacdadu dhacday iyo ilaa iyo maanta gurigeyga kama soo bixin waxaasina waxay ku dhacayaan maxaad qarankaaga jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeysatay halkan waxaan kala dardaarmayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan kuwa xamar jooga war waxaan leeyahay adduun magac baa ka hadha qadiyadaada markaad ku dhaganaato ka soo horjeeda ku taageeraya waxaan leeyahay iska dhaafa fulinimada maalin baa la dhintay laba maalmood lama dhinto qarankiina jamhuuriyadda Soomaaliland taageera iska dhaafa dabadhilifnimada qarankiina idin baahan hadda isleedihiin xamar baa shaqooyin ku haystaan Soomaaliland waxba ka heli maysaan wartaasi waa beel Soomaaliland waa barwaaqo kale dalkii barwaaqo ku jira badeeni maanta caalamka Soomaaliland ka wanaagsan jirto caalamkii oo dhan baa indha inagu haya maalgelin baynu sameeynaa wadamada jaarka Itoobiya kaliya ma aha wadamo badan baynu soo dhaweynaa caalamkii oo dhan baa inoo imanaya sababta marka Soomaaliland wuxuu soo kordhaan Soomaaliya oo dhan u qayliso wanaageena ay Soomaaliland uga qayliso ma isweydiiseen taa waxaan kula dardaarmay shacbiga Soomaaliland inay ogaadaan oo aanay noqon mawjad iska raace ay qiimeeyaan waxa uu soo kordhay oo indha caafimaad qaba ku eegaan farmaajo waqtigu uu joogay 4 badood buu saxeexa 4 badood ayuu saxeexa 4tii badood uu saxeexay Soomaaliya ka mid ahaa farmaajo wuxuu ka mid ahaa raggii ugu dhawaabiyay Axmed maalin qura lagama hadlin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Badi Kenya wuxuu ibsaday wixii ka dhacay waa looga cidi kama hadlin maalintii Soomaaliland badeedii maalgelin ku sameysay maxaa waxa soo qeylaa